nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta xilli walba goor walba iyo waliba waqti walba oo aad adigu jeceshahay daawade magacaygu waa Shine Gestir waxaan caawa videogan gaaban ka sii ambaqaadaynaa cashirkeeni lixaad ee xisaabta jajabta taasoo ciwaankeedu yahay dividing fractions isku qaybinta jajabta marka la isku qaybinayo xisaabta jajabta waxaa la maraa 4 marxaladood marxaladda koobaad sideeda u daa jajabta hore markaa kadib u gudub marxaladda labaad calaamadda isku qaybinta u bedel calaamadda isku dhufashada markaa kadib u gudub marxaladda saddexaad jajabta dambe kala rog hooseeyaha sareeya ka dhig sareeyahana hooseeya ka dhig markaa kadib u gudub marxaladda afaraad ugu dambeynta isku dhufo sareeyayaasha iyo hooseeyayaasha daawade afartan marxaladood waxaan si fiican ugu fahmi doonaa markaan u guda galno tusaalayaasheena soo socda waxaana la yiraahdaa halkan xalli jajabta hoos kaaga muuqata waxaa halkan inooga muuqda 4 tusaale oo ah isku qaybinta jajabta balan ku horeeno tusaalaheena koobaad inagoo raacayna 4 marxaladood tusaalaheena koobaad waxaana la yiraahday 8 toddobaad loo qaybiyay 2 koobaad waa imisa waxaan dhahaynaa waxay la mid tahay marka koowaad waxaana la yiraahday sideeda u daa jajabta hore waatana waxaana la yiraahday sideeda u daa waxaan dhahaynaa waa yahay 8 toddobaad markaasaan waxaan u guda galaynaa marxaladda labaad calaamadda isku qaybinta u bedel calaamadda isku dhufashada waatana calaamadii isku qaybinta waxaan u bedelaynaa calaamadda isku dhufashada waxaan dhahaynaa lagu dhuftay markaas waxaan u guda galaynaa marxaladda saddexaad jajabta dambe kala rog oo hooseeyaha sareeya ka dhig sareeyahana hooseeya ka dhig waatana jajabtii dambe sareeyahan ayaa waxaana la yiraahday hooseeya ka dhig hooseeyahana sareeya ka dhig waan kala rogaynaa markaas waxaan dhahaynaa hal labaad markaas waxaan isticmaalaynaa marxaladda ugu dambaysa oo dhahaysa ugu dambeynta isku dhufo sareeyayaasha iyo hooseeyayaasha haye sareeyayaasha waa kuwana waa 8 iyo halka 8 lagu dhuftay hal waxaan ognahay inay tahay 8 7 lagu dhuftay 2 waxaan ognahay inay tahay 14 sidaa darteed daawade 8 loo qaybiyay 7 waxaan jeegaa 8 toddobaad loo qaybiyay 2 koobaad waxay la mid tahay 8 14aad waxaan u guda galaynaa tusaalaheena labaad waxaana la yiraahday 6 shanaad loo qaybiyay 7 shanaad waa imisa waxay ahayd 4 marxaladood marxaladda koobaad jajabta hore sideeda u daa waa 6 shanaad marxaladda labaadna calaamadda isku qaybinta u bedel calaamadda isku dhufashada waxaan dhahaynaa lagu dhuftay marxaladda saddexaadna waxay ahayd kala rog sareeyaha iyo hooseeyaha waxaan dhahaynaa markaa 5 toddobaad marxaladda afaraadna waxay ahayd isku dhufo sareeyayaasha iyo hooseeyayaasha sareeyayaasha waa 6 iyo 5 6 lagu dhuftay 5na waxa weeyaan 30 hooseeyayaashana waa 5 iyo 7 5 lagu dhuftay 7na waa 35 waa very simple waxaan u guda galaynaa tusaalaheena saddexaad
waxaana la yiri 15 14aad loo qaybiyay 21 3 waa imisa marxaladda koowaad waxayna dhahday jajabta koobaad sideeda u daa waxaan dhahaynaa markaa 15 14aad marxaladda labaadna waxayna dhahday calaamadda isku qaybinta waxaad u bedeshaan calaamadda isku dhufashada haye lagu dhuftay marxaladda saddexaadna waxaana la yiraahday sareeyahan hooseeya ka dhig hooseeyahana sareeya ka dhig waan kala bedelina marka waxaan dhahaynaa 33 21aad markaas waxaan isticmaalaynaa marxaladii ugu dambeysay ee dhahaysay isku dhufo sareeyaasha iyo hooseeyaasha 15 lagu dhuftay 33 waxa soo qaadanaynaa calculatorkeena si aan waqti uga faa'iideysano waxaan dhahaynaa 15 lagu dhuftay 33 waxay la mid tahay 495 495 14 lagu dhuftay 21 waan soo xalinaynaa iyadana 14 lagu dhuftay 22 waa 294 294 15 14aad loo qaybiyay 21 33aad waxay la mid tahay 495 294aad sidaas ayaan ku soo xalinay tusaalahani saddexaad hadaa rabtidna waad si yareyn kartaayo lambarka u wada qaybsama labadan ayaad u qaybin kartaa si aad tiro yar uga dhigtid waxaan u guda gelaynaa tusaalahana afaraad haye 122 122aad loo qaybiyay 233 333aad waxaan rabaa inaan xalino xisaabtan marxaladii koobaad waxayna dhahaysay jajabta hore sideeda u daa waa 122 122aad markaas waxayna dhahaysay marxaladda labaad calaamadda isku qaybinta u bedel calaamadda isku dhufashada markaas aan u bedelaynaa calaamadda isku dhufashada marxaladda saddexaadna waxayna dhahaysay sareeyaha iyo hooseeyaha isku rog oo sareeyaha waxaad ka dhigtaa hooseeye hooseeyahana waxaad ka dhigtaa sareeye marka waxaan dhahaynaa 333 233aad markaas ayaa waxaan isticmaalaynaa marxaladii ugu dambeysay ee dhahaysay sareeyaasha isku dhufo hooseeyaashana isku dhufo aan soo qaadano calculatorkeena 122 lagu dhuftay 333 122 lagu dhuftay 333 waxay la mid tahay 40626 40626 marka kadibna waxaan isku dhufanaynaa 122 iyo 233 122 lagu dhuftay 233 waxay la mid tahay 28193 28193 hadaa rabtidna waa si yareyn karnaayo lambarka u wada qaybsama hal lambar oo u wada qaybsama ayaad u qaybinaysaa ilaa aad ka dhigtid lambar yar oo aad ku faraxsan tahay daawade waxaan rajeynayaa inuu videogan gaaban ka anfacay isku qaybinta jajabta inta aan videogan video lamida ku kulmayno waxaan ku si dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh